bal haatan daawadayaal warbixin ka duwan wararkii hore ay soo daawateen nin u dhashay wadanka Uganda ayaa waxa soo dalbaday shirkado badan oo ka shaqeeya soo saaridda dawooyinka lagula dagaalamo cayayaanka kadib markii ninkaasi la ogaaday in neeftiisa ay ku dhiman karaan xayawaankaasi. ninkan ayaa sheegay in neeftiisu ay dili karto kaneecada iyo cayayaanka kale ee masaafo ahaan u jira ilaa 6 mitir. sheekada ninkan ayaa soo shacbaxday kadib markii wargeyse ka soo baxa wadanka Ingiriiska ay wax ka qoreen. arrinta la yaab kale ayaa waxay noqotay kadib markii ninkan ay shaqaalaysiiyeen oo ay heshiis la galeen shirkado sameeya dawooyinka lagaga hortago cayayaanka, qaar kalena ay baaritaan caafimaad ku sameeyeen. isagoo ka hadlaya awoodiisa rabbaaniga ah ayaa waxa uu yiri, waxaan cunaa cunto la mid ah tan dadka kale ay cunaan, balse ma jiro cayayaan ku dhiiran kara inuu ii soo dhawaado, xitaa duqsiga ayuu yiri. ninkan oo aad looga yaqaano magaalada Kampala ayaa nolol ahaan la mid ah dadka caadiga ah ee ku dhaqan magaaladaasi, sida uu sheegayna nadaafadiisu waa mid sarreysa. arrintan ninkani ma aha mid lala xidhiidhin karo noocyada cuntada uu isticmaalo iyo heerka noloshiisa, waxayse u muuqataa awood rabbaani ah. nin ka mid ah saaxiibada ninkan aadka uga agdhow oo wax laga weydiiyey ayaa waxa uu yidhi, marka uu Joy nala joogo dadku aad ayay u ixtiraamaan, balse waxa uu neeftiisa ku laayaa marka ay kaneecadu ka soo buuxsanto halka aan ku sugannahay. qaar ka mid ah dadka ku nool tuulada uu deganaa ninkan ka hor intaanu iman magaalada caasimadda ah ee Kampala ayaa sheegay inaanu jirin qof ku nool tuuladaasi oo waxyeello ka soo gaadhay kaneecada, maadaama neefta ninkan ka soo baxda ay dili karto kaneecadaasi. waa hagaag, waa sheeko la yaab leh. ninka neeftiisa shaqada ku helay kadib markii dadka deegaanku ay sheegeen in ninkan uu awood u leeyahay inuu waxyeeleeyo cayayaanka ay ku jirto kaneecadu oo wax badan dhibaato u geysata bini'aadamka. qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay wararka caalamka ee telefishinka Ariel idinka imanayay xarunta dhexe aan ku leenahay magaalada Hargeysa. waxaan idin waramayay anigoo Axmed Shmaaliya. aniga iyo asxaabta kale igala qayb qaadatay warkaba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgeliyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.